حسين شبيل إبراهيم حسن حسين محمد iyo Chief Caaqil Xasan Ibrahim Xuseen oo ahaa xubno dhawaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay inay yihiin maayarka caasimadda Hargeysa ayna ku mutaysteen in loo taxaabo xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo ay in muddo ku xidhnayeen waxa cafis ku soo daayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba xubnahan oo saaka shir jaraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa shacabka Soomaaliland waxay ka raali geliyeen falalkii ay ku kaceen iyagoo sidoo kalena ugu mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi cafiskii uu fidiyay iyagoo sidoo kalena madaxweynaha ugu baaqay inuu sharciga hor keeno maayarka caasimadda iyo ku-xigeenkiisa xubnahan ayaa sidoo kale waxa ay ka dhawaajiyeen inay gabi ahaanba ka baxeen xisbiga ay ka tirsanayeen ee wadani isla markaasna ay u diga rogteen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ay sheegeen inuu dardar laxad leh ka qaatay soo deyntoodii mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna cafis madaxweyne noo fidiyay sidaan aan ku soo baxnay maanta caasimadda Hargeysa annaguna waxaan ku xidhanay dib ay geysatay dawladda hoose dayacaad ay geysatay dawladda hoose dan ay lumisay dawladda hoose waxaanu leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay maadaama oo indhahaagu ay soo arkeen halkii aanu ku xidhanay ee annagu aanu ka hadalnay ee baaba'sanay abaal bay kuugu hayaan reer Maxamed Mooge iyo reer Maxamuud Haybe markii aad tagtay goobtii dareenkii aad qaadatay ee quruxda badnaa ee ka jawaabida wada dhisida waa daayacaad uu ku iloobay hawshii loo igmaday waxaan leeyahay madaxweyne waxaanu kaa sugaynaa waxaanu kaaga diyaarnay 31 bisha saddexaad si awood iyo mugle amar digreeta madaxweynaha inaad ugu kala dirto golaha deegaanka inaad ku magacawdo digreeta madaxweyne maayar ku xigeen ku siisima inta ay dhacayso doorashada golaha deegaanka ee soo socota waxaanu madaxweynaha sharafta leh ka igmanayna ka dalbayna ka sugayna gacmaha ku hoosaysana ina uu la xisaabtamo 25 deegaanka oo u horeeyaan maayarka iyo maayar ku xigeenka iyaga oo maalintii ay soo galeen ee la doortay nin waliba wuxuu ka yimi iyo hantii wuxuu lahaa la arko maanta aad aragto fooqyada waxaanu haddaanu shacbi weyninahay ka sugaynaa in aad la tiigsato maxkamad sharciga waafaqsan maayarka iyo maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa aanu ahayn saddexdan meesha fadhiya saddexdii ku midka ah xisbiga wadani waxaanu u wareegnay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka taas waxaanu halkan ka cadaynaynaa in aanu u wareegnay ku biirnay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka annaga iyo taageerayaasheediiba dani anuu gola dhaxaan ka mid ahay kaadhkayga waa kaa xisbiga wax allaale iyo wax aanu ka haynaa haddaanu xidhnayn iyo haddaanu soo baxnay midna ma jirto runta wax aanu ka haynaa oo gurmad iyo muxuu ahaa halgan xataa dadkii noo socday ma ay dhiira gelinin ma isgarab taagin wax allaaliyo xisbiga aanu ku haynaa ma jirto sidaa daraaddeed waxaan go'aansannay ciddii abaalka noo gashay inaanu u gudno oo aanu ku wareegno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka maanta oo taariikh 1 bisha saddexaad waxaanu go'aansannay inaanu ku wareegno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaan mahad celinayo ugu horeyn madaxweynaha ummadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka labaadna waxaan aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Uxid asna aad iyo aad baan u mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa dhammaantood intii aanu xidhnayn ee aanu ku xidhnayn xabsiga dhexe hawshii ay ku dadaaleen waliba gudoomiyintii dambe ku dadaalayay xisbiga Uxid injineer Faysal Cali Waraabe sidii noo lagu soo deyn lahaa xorriyaddeeda aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waa Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa.